dhaqdhaqaaqyo colaadeed ayaa ka socday muddooyinkii ugu dambeeyay dhammaanba xuduudaha deegaanka Soomaalidu uu la wadaago deegaanada Itoobiya gaar ahaan Oromada iyo Canfarta wasiirka xuduudaha iyo xalinta khilaafaadka deegaanka Soomaalida ayaa markii ugu horeeyay ka hadlay dagaalada ka socda xuduudaha deegaanka Soomaalida dawladda deegaanka Soomaaliduna ilaa ma ay kamayna jawaabin hawsha iyada wax gurmada iyo wax kale loo diray midtoona ma jirto maanta waxaan maxaa kulli halkan iskugu imaanay shirka jiraayad aan qabanayno arrimaha xasaasiga oo jira darteed oo ku saabsan arrimaha xafiiska quseeya xuduudaha la wada ogsoon yahayba waxaan xuduud la wadaagnaa ka dawladda deegaanaha saddex deegaanka Oromada oo ugu badan deegaanka Canfarta iyo Dirrabe saddexdaaba dhaqdhaqaaq ba ka jira magaaladan dawladda deegaanka caasimadeeda ee Jigjiga ilaa ma iyo 26 kilomitir meel inoo jirta ka wareejin malaynaa dagaal baa ka socda marka arrimaha ayaa sababay in maxay ahayday shirkan jiraayad xafiisku qabto cidii ay khusaysan la gaarsiiyo wixii ay ka qaban lahayna kulli talabixin aan bixin anagu talabixin baan leenahay lixda gobol ee maxay ahayday aan deegaan dariska aan la nahay deegaanada Oromada iyo Canfarta iyo Dirrabe hadaan ku horeyno gobolka Faafan Tuluguleed Shabeelley Gursum iyo Baabul ayaan la leenahay sidaad ka wala warhaysiina dhulka kulli dhaqdhaqaaq ba ka jira dhaqdhaqaaq ay wadaan siyaasiyiin Oromo ah oo badheed dhulka Soomaaliyeed rabta inay maxay ahayday ku qaataan shacabka maxay ahayday Oromada waa dad walaalanahay waa dad wanaagsan laakiin qolo siyaasiyiina oo ajenda kale maxay ahayday ka damacsan ayaa arrimo dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo colaadeeda ka wada maxay ahayday deegaanada qaarkood tusaale ahaan Tuluguleed hadaan qaadano mareer dagaal baa ka socda maalmahan dagaalka waxa ku dhintay dad aad u fara badan oo ku dhaawacmeen si sharci darro ah ayaa biyo xidheenina laga sameeyaa la rabaa biyo xidheenka oo maxay ahayday la isku raacsanin dhammaan dawladda deegaanka Soomaalida hadday tahay dawladda deegaanka maxay ahayday Oromada waxay rabtaa inay dhisto laakiin ka Soomaali ahaan shuruucdii iyo sharcigii lama marin hal laga daayo ayaa la leeyahay laakiin toodiiba ku adkaystaan inay dhisaan way rabaan marar markaan us maxay ahayday ku sii socdo maxay ahayday dad Soomaaliyeed baa deegaan labada dhinacba anigu waxaan u aaminsanahay dad la bidixeeyay oo dhinaca kale marka la bidixeeyay kadib Oromada ka soo jeestay inay yihiin dad Soomaaliyeed baan labada qabiil ee halka maxay ahayday ku nool anu aaminsanahay marar waa la wada degan yahay labada qabiil bay wada degan yihiin laakiin siyaasiyiinta Oromada ayaa ka damacsan dhul ballaarsi bay ka damacsan yihiin waxayna sameeyeen inay dagaal ku soo qaadaan ciidanka liyuga Oromada ayaa dagaal ku soo qaaday dhowrkan cisho ugu dambeysay marar iyo shacabka degan dad aad u fara badanna way laayeen dad aad u fara badanna way dhaawaceen dawladda deegaanka Soomaalida wali kama jawaabin waxay sugayaan ma garanayno loo sheegay shalay ugu dambeysay baan maxay ahayday u sheegnay baa inay hawsha ayada ka howlgalaan waxba kama qabanin marka taas waa taa gobolka maxay ahayday Liban kulli waa la socotiin Qarsaan Dulla Dhikasuftu Garabo Qusa iyo Gorodamole ayaan la leenahay maxay ahayday xuduud Gorodamole iyo area wad ka waraysin kulli maalmaha ugu dambeysay in maxay ahayday dagaal ay ka dhaceen fara la isku tagay oo shacabka Soomaaliyeed la rabay in lagu barakiciyo heshiiska halka lagu gaarina heshiis maxay ahayday dhameystiran maaha marka inuu fara badan yahay inaan tusaayaan halkan rabaa gobolka Daawa markaan u imaano mooyaale Yahuudad ayaa xadla leh Oromada dagaalada ka dhaca iyo maxay ahayday isku dhaca meesha ka socda kulli waa maxay ahayday aad baad ula socotiin baan mareynaa gobolka Erar markaan imaano laga hidde salaxaad mayamuluqo iyo qubbi ayaa maxay ahayday darisan la nahay Oromada dagaaladu kulli iyo maxay ahayday isku dayga dhul ballaarsiga siyaasiyiinta Oromadu way caddahay waxaan leenahay laga noqdo laakiin taa ma noqonayso inkastoo gabagabadan maxay ahayday waxaan doono gobolka Afdheer markaan imaano Iimey galbeed Raaso Jarati iyo Ceelkarre waxaan la leenahay maxay ahayday Oromada ayaan la leenahay xad Ceelkarre shalay iyo maanta ugu dambeysay dagaal ba ka socda dhul ballaarsiga iyo sii socdo gobolka maxay ahayday City markaan imaano Erar Gootabiki Abdam Mulli Deymeed iyo dan la helay iyo maxay ahayday Dunyar ayaan la leenahay gobolka maxay ahayday Canfarta
sida la wada ogsoon yahayba isbeddelkii kadib dagaal waxba la isku hadhin ay deegaanka canfarta ku soo qaatay gobolka City magaalooyinkii Garbaciise Cadaytu iyo Cundufaba oo dad Soomaaliyeed 100% ay deganaayeen xoog baa lagu qaatay waxaana xoog ku qaatay ciidanka canfarta iyo jabhadooda oo wala socda dawladda federaalka oo jooga ciidanka militariga oo jooga ayaa dadka lagu maaday dad aad iyo aad u fara badan baa Garbaciise lagu maaday ilaa ma ay iminkana hal qof oo loo qabtay ma jirto dawladda federaalkuna way joogeen markii dibta dadka loo geysanay kaba darana gobolka City haddaan ku sii socono labadii degmo ee ugu dambeysay ee dawladda deegaanka Soomaalidu dadkii la soo barakiciyay ay u ansixiyeen ee Deymed iyo Dhuunyar ahayd Dhuunyar waa la haystaa ciidanka canfarta iyo jabhadooda ayaa qabsaday dawladda deegaanka Soomaaliduna ilaa ma ay kamayna jawaabin hawsha iyada wax gurmada iyo wax kale oo loo diray midtoona ma jirto xafiisku wuxuu taagan yahay xaqiijinta nabadeynta xuquuqda asaasiga iyo ku dhaqanka dimuqraadiyadda si loo gaarsiin lahaa dadka Soomaaliyeed ee xuduudaha ku nool sidaa daraadeed waxaan ugu baaqaynaa guud ahaan dawladda aqoonyahanka qaybaha kala duwan ee shacabka Soomaaliyeed inay aragti midaysan ka qaataan ilaalinta xuduudaha iyo badbaadinta shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan xuduudaha lana kulmaya dagaalada isdaba jooga iyo duulaanka kaga imanaya deegaanada dariska ee Oromada iyo Canfarta iyo Dirraba iyaduna aad iyo aad isku balaadhinaysa gobolka City iyo magaaladii Dirraba iyada la rabo qudhadeeda in gacanta Soomaaliya laga wareejiyo gacan kalena la geliyo xaqiiqada marka la sheegana magaalada Dirraba waxay ahayd magaalo Soomaaliyeed bay ahayd oo Soomaali baa asaastay arrimaha maxay ahayd adag ee cakaran in maxay ahayd la soo wajahay ummadda Soomaaliyeed waxa laga bixi karaa midnimo iyo wadajir baa laga bixi karaa waxaana laga hortagi karaa damaca shisheeyaha iyadoo loo midoobo dhammaan oo dhan baq waxaan xagga ugu daraynaa aan uga dirayaa kuwa inay isku balaadhiyaan raba sida xoogana ku qabsadaan dhulka Soomaaliyeed ma dhici doonto darisnimada iyo wanaagu hana wala deeqo dhulka Soomaaliyeed xoog lagu ma qaadan karo. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.